bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhegeystayaal kusoo dhowaada warka saacadda ee warbaahinta nation ee shanta galabnimo. waxaana idin waramaya anigoo cabdi xaajiya. madaxweynaha maamulka puntland Siciid Cabdulaahi Dani wafdi hogaaminayo ayaa galabta lagu soo dhaweeyey magaalada caasimada ee muqdisho. socdaalka madaxweyne Dani ayaa daaran ka qaybgalka shirka wadatashiga qaran ee uu iclaamiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. waxaa sidoo kale muqdisho ku sugan madaxda maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug, halka la filayo in madaxweynayaasha kale ay soo gaaraan maalmaha soo aadan. maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta soo gabagabaysay dhegeysiga dacwad loo haysto askar ku eedeysan dilka wiil iyo gabar walaalaha oo lagu dilay isgoyska dabka ee magaalada muqdisho. askarta la horkeenay maxkamadda ayaa kala ahaa dable xoogga dalka Cabdiwaayeel Macalin Aadan Keenadiid iyo dable xoogga dalka Dayax Nuur Cabdi Aadan, kuwaas oo ku eedeysan dilka Sakriye Maxamuud Xuseen Kalafoge iyo Sawda Maxamuud Xuseen Kalafoge. waxaa maxkamadda la horkeenay hubkii ay wax ku dileen, natiijada baaritaankii CID-da iyo markhaatiyaal. kalfadhiga labaad kulankiisa koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta ka qabsoomay caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar. kulanka uu shir gudoomiyey gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Cabdulxakiim Luqmaan Xaaji Maxamed oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad Siraaj Sheekh Isxaaq Cabdulle iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad Mahad Xasan Cusmaan oo ajendiisu ahaa soo bandhigidda soo jeedinta xildhibaanada ee u yeeridda gudoomiyaasha gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. dhegeysiga warbixinta kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle. ugu dambeyn gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Cabdulxakiim Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa ku dhawaaqay in kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle uu xiran yahay, wuxuuna xildhibaanada kula dardaarmay in muddada fasaxa xildhibaanada ku laabtaan deegaan doorashadooda si kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka u horkeenaan warbixin ku saabsan xaaladda nololeed ee deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle. ugu dambeyntiina golaha amniga ee dalka Banaama ayaa maanta go'aamiyey in hawada dalkeeda laga xiro dhammaan diyaaradaha rayidka iyo kuwa militariga ee waddanka Kuuba, siday sheegtay madaxtooyada Banaama. wax ka yar bil kadib markii xiriirka diblomaasiyadeed ee u jartay dalka ay dariska yihiin ee Banaama. bayaan ay soo saartay dowladda Banaama ayaa lagu sheegay in go'aankan uu ka yimid daandaansiga sii socda ee dhaqamada cadaawadda leh ee dhinaca Kuuba, ayaa lagu yiri war ka soo baxay madaxtooyada dalka Banaama. warkii saacadda ee shanta galabnimo ee warbaahinta Nation FM waana intaa dhegeystayaal.